والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدحوينها جمهورية الصوماليلاند isagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka ay umadiisu u igmatay lana socdo duruufaha adag ee soo waajahay wuxuu saaka isku yeeray gudidii hore ugu igmaday sanadkii hore bishii labaad inay ummadda keeda qaniga wax ka qaado oo keeda faqiirka ay ku celiso iyo golihiisa wasiirada maadaama ay soo food yeelatay abaartii kal hore mid la midi oo sanadkii hore dalka intii ladnayd ay si xun uga bilaabantay waynu ogaanay abaaruhu sanadkii hore waxay ku badnaayeen ama miisaankeedii culeyskeedu ku dhacay galbeedka dalka maantana waxay ku culus tahay bariga dalka waliba sidoo si kala fog yahay madaxweynuhu isagoo xilka iyo waajibaadkaas umadiisu u gmatay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala ku eegayo gudanaya kuna amaanay yahay ilaa imaka sidoo uu hagayo in loo gurmado ummadda oo isu gurmato oo gurmadkii sanadkii hore la sameeyay mid lamida la sameeyo waliba waxa dheer dadkeenu waa garanaysaa laba xilli roobaad baynu helaa gu iyo dayr baynu helaa bishii dayrta aynu heli jiray ee dalka Soomaaliland 90% ama 95 waxay helaan dayr bay heli jiray roobka dayrta roobka karantu galbeedka dalka ayuu ka dii jiray iyo waqooyiga laakiin miisaanka dalka oo bariga iyo koonfurta dayrta ka dii jirtay bishii dayrta ay dii jirtay bisha tobnaad bay ahayd waa ogsoontihiin meel la kabay diin waxa dheeraa gugii dhaweydna dalka barigiisa teel ayuu ku ahaa marka abaarta laba jirsatay ayaa barigii dalka ka jirta waxaanu ugu si kala nugul yahay dhibaatada ugu badan tahay sida uu kala fog yahay oo xataa si kala hadaan jirin sida loo gaarayaaba adag oo duruuf adag iyo dhibaato adag baa lagu gaaraya iyo koos adag sida awadeed wasiiradii baa jeediyay aniga muxuu ahaa gudoomiyaha ganacsi ahaan waxaan halkan baaqaygan ku gaar yeelaya raggaan odaga wahay ganacsatada Soomaaliland waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dhiibay waxaynu badeena ka tabaanay raasamaalka iyo hantida ummadda Soomaaliland waa intaaynu hay Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala sidii maartay diintiisa ku cadeeyay sida inuu ugu naxariisano inuu ugu damqano markay dhibaatadu timaado aynu ugu nuglaano ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ugu korinaya mid kalena deegaanka ku xoogsanaayo markay dhibaatoobaan iyaga inoo hadda ka samar wax inaga iibsada dadku markay dhibaataysan weyn ogsoonahay dalbaabadeenu iska xidhan yihiin cidi maartay wax inaga iibsato sida awadeed sidii caadada ahayd meel sare lagu guntado oo muxuuha baaqaas madaxweynuhu subxaanahu wa ta'ala nafaray inaan soo jeedino muxuuha culimada iyo dadka gudida uu xil saaray markay idin yimaadaan sidii caadada ahayd la soo dhaweeyo waa dadkeeni waa nafteeni waana wahay kullayba muxuuha inaga waynagu joogto oo halkii wax yaalaan ayaa dadku markay naftu timaado ay tagayaan tanna way ka sii xaq jirtaa marka arinta ha loo dhigan nuglaado ha loo diyaar garoobo sidii hore si ka muqbada waayo dhulka imaka abaartu haysa uu ka badan yahay waanu ka baaxad weey yahay dhulkii kale hore ay haysay waa ogsoontihiin dhulka Soomaaliland marka burca la gaaro ayaa farmeeladu waliba xagga ay sii jirta marka waxa oran karaa dhulka imaka haysa waxa weeyaan Soomaaliland 90% iyo in ka badan bay dhibaatadu iyo abaartu haysa sida awadeed gacantii hore gacan ka weyn ayaa la inaga sugayaa aniga odagiinaya in loo dhaga nuglaado subxaanahu wa ta'ala dadkeena aynu ka farxino si Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga inoo naxariisto waxaynu haynana inuu ugu koriyo oo inuu ugu badiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.